ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya ugu xilsaaran arrinta Soomaaliya Ambassador Nicholas Kay ayaa sheegay in Soomaaliya ka soo gudubtay waqti adag isla markaana iminka ay ku naaloonayso nabad iyo deganaansho isagoo sheegay in guud ahaanba Soomaaliya iminka ay ku socoto midnimo iyo qaran federaal ah waxaana uu ballan qaaday in bulshada caalamka oo dhan ay taageeri doonaan isagoo ugu baaqay Soomaalida oo dhanna inay ka qayb galaan sidii Soomaaliya ay u noqon lahayd meel nabdoon waraysi gaar ah oo siiyay idaacadda qaramada midoobay leedahay ayuu ku sheegay in wax badan ay ka bedeli doonaan ammaanka shaqaalaha qaramada midoobay ee Soomaaliya si looga hortago khatarta kooxaha shabaab ee la dagaalamaya qaramada midoobay ambassador ayaa nasiib darro ku tilmaamay in deegaano weli ay gacanta ku hayaan harakada shabaab ee Soomaaliya waxaana uu sheegay in qaramada midoobay ay dadaalka ugu xooga badan gelin doonto sidii Soomaaliya oo nabada loo heli lahaa waxaana ugu yeeray guud ahaanba ka qaybgalayaasha Soomaaliyeed in qayb ay ka noqdaan dadaalka dib loogu soo celinayo sharafta iyo qarannimada ummadda Soomaaliyeed. It is more costly to deliver. The overheads for security are quite significant, but they do not stop us. Both the UN humanitarian and country team, they're there across Somalia, helping the very, very vulnerable and very, very needy women, children, and adults in Somalia. And the political mission is there as well. We are there helping to build a new federal democratic Somalia, helping the Somalis build that state which they have chosen to do. Ambassador Kay, is there going to be any change in the way the UN is working in Somalia? There will be always changes as we adapt to the changing security risks. We adjust our posture and our operating procedures constantly in line with the changing security environment across the whole of Somalia. Does the security situation prevent aid workers to reach communities in need in Somalia? There are still, unfortunately, areas of the country that al-Shabaab control and where they refuse to allow international aid agencies, including the UN, to have access. They also try to block the access to other towns by ambushing convoys, including humanitarian convoys. So this is a daily reality and a daily problem. But despite those challenges, I would say we must recognize that Somalia is gradually coming together as a strong, united federal country, and very gradually the people's needs are being met as well. Children are going to school again in numbers that have not been seen since 25 years ago. Schools are opening again for the first time in 25 years. Children are being immunized against polio, against measles, and millions of them now are able to have a future free from the fear of such diseases. So Somalis are getting some of the help that they need, and the United Nations family, as one family, is determined to continue to help them. waxaana uu sheegay in bulshada caalamka ee saaxiib la siyaasadda Soomaalida ay wax badan ka guuleysan doonaan dhinacyada oo dhan haddii la isku wada raaco hannaan Soomaaliya oo dhan ay ku midaysan yihiin oo ah inay hadda Soomaaliya gaarto yoolasha ay u baahan tahay